السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan ku soo dhow kororsaaqoon.com iyo kororsaaqoon channel labadaba magacaygu waa Cabdullaahi Ismaan. Maanta muuqaalkan waxaan ugu talagalay ogeysiis iyo xogaa bashaarooyin inaan siiyo courseska ku jira website-ka oo ay ka mid yihiin JavaScript, WordPress, MySQL, Windows-ka, Word-ka, PowerPoint-ka, Complete Web Development-ka iyo course-kan cusub ee C# course-kan gaar uga hadli doono. intaasba waxaan ku sameynay intan ka hadhay Ramadaan ama Ramadaan intan ka harsan intan ciid la gaarin ka hor in qofkii hal course kata aan ugu darno course labaad. qofkii hal course qaata aan ugu darno course labaad, laakiin shuruudu ay tahay course-ka uu qaatay iyo course-ka loogu darayaa waa in ay noqdaan the same price. tusaale ahaan dad qaadato Windows 10 waxa lagu dari karaa Word ama PowerPoint baa lagu dari karaa. haddii aad qaadato ka soo qaad web development-ka waxa lagu dari karaa MySQL. haddii aad qaadato WordPress oo kale waxa lagu dari karaa MySQL ama web development-ka ayaa lagu dari karaa. haddaad JavaScript qaadato waxa lagu dari karaa WordPress ama MySQL iyo weliba kuwan kale waa lagu dari karaa oo kuwana laba waad raacsan kartaa. oo haddii aad tusaalaan JavaScript qaadato waxa lagu dari karaa maadaama isagu yahay 6 imika oo qiimo dhimis sameynay waxa lagu sii dari karaa PowerPoint-ga ayaa lagu dari karaa. laba course baad isla qaadanaysaa. laba course hadaad qaadato waxaad helaysaa 4 course baad helaysaa oo labada aad qaadatay iyo labada lagugu daray. course walba course baa lagu daraya. marka waa buy one get one for free. marka horena waan qiimo dhimis waan sameynay already. marka horena qiimo dhimis waa marka lahayn taa ka gudub waxaan haynaa oo kale course cusub oo ah imika aan soo release gareynay oo ah C# course. hadda ayaan release gareynay aan muuqaalkan duubayo. course-kan waxaa lagu baranayaa from zero to advanced C#. marka qofka aan weligii aan qorin code iyo qofka waxoogaa kusoo guda jiray coding-ka labadaba waa anfacaya course-kan. marka C# course-kan gaar ayaynu uga hadli doonaa waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha aad baran doonto. laakiin haddaad si guud ahaan kugu sii daabto waxaad baranaysaa basicska luqadda iyo C# course loo qoro best practice-ka loo qoro. waxaanu baran doonaa variableski, data typeski, operatorski, waxaanu baran doonaa control flow statementski oo ay ka mid yihiin if else statementski, switch statementski ay ka mid yihiin loopski. waxaanu baran doonaa object oriented programming-ka, waxaanu baran doonaa classeski, objectski, propertieski, dhammaan waxyaabahan aynu baran doonaa. methodski aynu baran doonaa, constructorski, inheritanceski, interfaceski, recordski, waxaas aynu baran doonaa. collectionski aynu baran doonaa oo aynu baran doonaa data structures kala duwan oo ay ka mid yihiin arrayski oo ay ka mid yihiin array listski. arrayska dhowr qaab aan u kala qaadi doonaa oo multi dimensional arrays iyo arrays caadiya. marka course-kan mar gaar ayaynu ka hadli doonaa, laakiin waa course aad u ballaaran oo qofka looga soo bilaabayo from zero ilaa iyo advanced. ugu dambeyntii waxaa la samayn doonaa projects lagu xidhayo databaseska. marka qofku wuxuu noqonayaa full stack desktop developer. xogeeri ASP na raacin doonaa marka dambe. marka imika ayaan sii daynay waxa ku jira 86 cashar. imika markaan muuqaalka duubayo 5 arday baa qaatay. marka waa course aad u ballaaran, isaguna course aad u ballaaran muhiimna ah cid walba oo programming in barata doonaysa qaybta .NET-kana kasoo gasho doonaysa anfacaya. waxaan isticmaali doonaa .NET Core version 7 ayaan isticmaali doonaa oo ah kii ugu dambeeyay latest and the greatest ah. imika waa 86 cashar. casharadu intan ka badnaanayaan ilaa iyo 30 cashar kala dhiman. marka imika intan waa intaan soo upload gareynayo oo ah qaybtii hore. marka course-kana sidaa looga warhayo. ugu dambeyn waxaan idinkaga tegayaa Ramadaan mubaarak. laga faa'iideysto Ramadaanta. sida oo kale looga faa'iideysto cibaado iyo in aad waqtiyada firaaqada aad wax barato oo aad wax soo kordhiso ama aad aqoontaada sare u qaado adigu aad islisto. saasaan idinkaga tegayaa. wassalaamu calaykum.